laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland ayaa lagu dilay bariga magaalada Laascaanood kadib markii sida la sheegayo ay koox hubaysan rasaas ku fureen labadan askari oo ilaalinayay mid kamid ah goobaha dadweynuhu ay ka qaadanayeen kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo la hadlayay xaqiijiyay dilka labadan askari waxaana uu sheegay in heegan la geliyay ciidamada Soomaaliland ee aaggaas oo la wado baaritaan lagu raadinayo ciddii ka dambeysay falkan askarta lagu laayay oo dhacay habeennimadii jimcaha xalay inaan tacsi u diro qoyskii heladii iyo xasaskii iyo waliba ciidanka booliska ee qaranka iyo dawladda Soomaaliland ba aan uga tacsiyeeyo labadii askari ee ciidanka booliska ahaa ee xalay lagu dilay magaalada Laascaanood in laba sarkaal oo ciidanka booliska oo markaa iska bilaala oo aan waxba filaynin oo ilaalinaya goobihii sanaadiiqda kaar qaadashadu lagaga codeynaya ama kaarka lagaga qaadanayay ku gaaday laba askari oo halkaa gaar ka hayay labadii askarna labadii marxuumna ay halkaa ku dhinteen ilaahay naxariistii janno ha siiyo labada marxuum maanta ayaa lagu aasay magaalada Laascaanood waxaanu filaynaa imka wixii ka dambeeya ama ka codsanayna ka rajeynayna in loo midoobo nimanka la dagaalankooda nimanka in dhammaan bulshada oo dham qofba meel buu ka soo sheegi karaa guriga ay kareysanayaan baa la ogaan karaa meesha ay ka soo galeen baa la ogaan karaa amalka ay qabtaan iyo hawsha ay qabtaan iyo shaqada ay hayaan baa lagu ogaan karaa siyaalo badan baa loo dabageli karaa waxa bulshada laga codsanaya oo aan ku dhiiri gelinaya aan ku boorinaya bulshadu inay u midowdo qof waliba qofka kale qofkii maxay too aanu garanayn inuu soo sheego sidoo kalena barsaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Radir ayaa u tacsideeyay eheladii ay ka baxeen labadaasi marxuum halkan tacsiga dalaya labadii marxuum ee xal iyago shaqada qaranka gudanaya gacanta ka xaqdarni gudishay gudaha magaalada Laascaanood waxaan leeyahay iyaga naxariis janna Allah ka waraabiyo eheladii asxaabtii iyo qaraabada ay ka tageen samiriima Allah ka siiyo waxaan taasi taalamida u dirayaa ciidanka booliska gobolka Sool ay ka tirsanaayeen iyo taliska guud ee ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay dhamaanteen samiriima Allah inaga siiyo iyagana waxaan Ilaahay uga rajeenaa inuu ka dhigo kuwa jannada gala. Wasiirka waxa laga weydiiyay mudaharaadyo maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Laascaanood ayaa waxa uu sheegay in magaaladu hadda degan tahay oo ciidamada Soomaaliland ay dejiyeen dadkii waday mudaharaadka oo la sheegay inuu ka dhashay lacagaha lagu isticmaalo magaalada Laascaanood waa goobtii labaad ee laga qaadanayo kaararka codbixinta Soomaaliland ee weerar lagu qaaday iyadoo maalmo ka hor la weeraray goob kaararka laga qaadanayo ku taala tuulada Gurafley oo ka tirsan degmada Xudun waxaana weerarkaasi sheegtay jabhadda isku magacawday garabka xoreynta Khaatumo.